الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii taysiir axkaam الtajwiid uu iska lahaa sheekhi doctor yaxya cabdالrazaaq alghawthaniy xafidahu اllah waracaahu min kuli suءin wamakruh. marka darsigii labaad ama xalaqadii labaad ayaynu maanta hadduu ilaahay qadaro qaadan doonaa. axkaamu الnuun الsaakinati wالtanwiin. cinwaanka darsigeenu waxa weeyaan axkaamu الnuuni الsaakinati, nuunta reeban xukunka iska leedahay, iyo wالtanwiin iyo laba shaqalka. annuun aلsaakina xukunka iska leedahay markay dhacdo fii qiraa'ati alqur'aani اlkariim, imse xukun ama imse qaab baa loo akhriyi karayaa nuunta. wakadalika aلtanwiin laba shaqalki. haddaba maa hiya nuun الsaakina? intaynan gudagelin nuunta reebani waa maxay? hiy alatii laa xarakata lahaa be hiy alatii laa xarakata lahaa, waataan xarakada lahayn ee sukuunku uu dul saaran yahay ama reebniinku. tanwiinna waxay dhahaan culummadu huwa tanwiinku ama tanwiintu hiya aw huwa nuunun saakinatun, waa nuun reeban oo tulxiquha alcarabu, carabtu waxay haleeshiisaa yani tanwiinta aakhira alasmaa'i, asmaada xagga dambe ayaabay ka haleeshiiyaan oo bimacnaa ay dhacdaa tanwiintu lafdan xagga lafdiga, dhawaq ahaan bay muuqanaysaa, laa khatan xagga dhigaalka ma muuqanayso. wa waslan bay sugnaanaysaa xaalat lwasl wa waslan laa waqfan, xaalat lwasliga ayaabay tanwiintu ay sugnaanaysaa, kol haddii lagu istaago waa ay dhacaysaa. calaamadda lagu garanayo marka musxafka ay ku jirtana waxa weeyaan mudaacafatu اlxaraka, xarakadii baa la tadciifinayaa oo bimacnaa beyt maala, hadduu markuu beytun uu yahay damadii maxaa la raacinayaa tu kale, beyt oo kale. haddana kasradii maxaynu raacinaynaa tu kale ayaynu raacina, marka beytin yani marka lagu istaagayo tasqط, lakin xaalaة wasli way sugnaanaysaa. wakadalika beyta mafhuum. caliim, caliimun haddaan xidhiidhinayno, caliim oo markay majruurka tahay ama hoos dhigan tahay yani laba shaqal, caliimin. wakadalika markay godan tahay tanwiintu way israacaysaa, mudaacaf bay noqonaysaa, caliimun. wakuluhaa yani takunu haabitaة fi اlwasli walafdan laa khatan. marka iyada iyo nuuntana furuuq ayaa u dhaxaysa. kutubta kale ay noo soo socotaan insha allahu tacaala aynu kusii faahfaahin doonaa. su-aasha koobaad, maa axkaamu nuuni, nuunta xukunkeedu waa maxay? nuuntii asaakinati ee reebnayd, nuunta reeban xukunkeedu muxuu noqonaya? iyo watanwiin iyo laba shaqalkii, fatxatayn iyo kasratayn iyo damatayn baa la yidhaahdaa atanwiin. jawaab, linuuni nuuntii asaakinati ee reebnayd iyo watanwiini iyo tanwiintii hee, marka waa khabar soo taqadumay. arbacu axkaamin baa u sugnaaday linuuni asaakinati nuuntii reebanayd iyo watanwiini iyo laba shaqalkii. waa goormo laakiin? cinda iltiqaa'ihimaa bixuruufi اlhijaa'i, waa markay la kulmaan xuruufta hijaa'iga. nuunta reeban keligeed markay iska joogto ayna xuruuftii hijaa'iga ay ka daba dhicin, yani wax xukun ay qaadanayso maraatibtan ama axkaamtan aynu hadda sheegi doono oo afartaa ma yeelanayso, lakin laabudda waa inay la kulanto xuruuftii hijaa'iga. linuuni nuuntii asaakinati ee reebnayd iyo watanwiini iyo tanwiintii hee, arbacu axkaamin ama cinda iltiqaa'ihimaa markay la kulmaan nuuntii reebnayd iyo tanwiintii bixuruufi اlhijaa'i, yani xuruufta hijaa'iga ah markay la kulmaan arbacu axkaamin ama arbacatu axkaamin, axkaam afara ayaabay yeelanaysaa ay qaadanaysaa. ka bedelo alidhaaru dhe, waxay qaadanaysaa alidhaar wاlidgaamu iyo idgaam iyo wاlإkhfaau iyo ikfe iyo wاliqlaabu iyo iqlaab.
إذا maxay noo soo baxay النون الساكنة وكذلك التنوين عند التقائهما بحروف الهجاء مس حكم bay yeelanaysaa afartaas kow maxaa ka ah الإظهار ثانيا الإدغام ثالثا الإخفاء رابعا waxa weeyaan الإقلاب ama الqلب culamada qaarkood siday ka cabiraan afartaa xukun ayaa markay nuuntu reebanto iyo tanwiintii oo iyadana aan kusoo tilmaamnay inay aakhir alasmaa'i ay la xidhiidhsamayso xagga lafdiga khatanna ay dhacayso wasliga waqfanna markaa iyaduna ay dhacayso mafhuum afartaa xukun ayaad markaad ka baaraysaa afartaa xukun haddaba mid mid baan iyadana gooni u qaadan doonaa xukunkii koobaad wuxuu ahaa markaa alidhaar siin oo su-aal u taagan maa tacriifu lidhaari idhaarka tacriifkiisu waa maxay maxaa lagu qeexaa eray bixintiisa luqatan xagga luqada carbeed maxay u yaqaanaan alidhaar iyo wasilaaxan yahaka xagga heshiiska culamaa ahl aladaa waxay iyaguna u yaqaanaan alidhaar muxuu noqonayaa jiim waa jawaab alidhaaru idhaarku lugatan min lugatin xagga luqada yani xagga eray bixinta albayaanu caddayn baa la yidhahdaa iyo walwuduuxu waa un caddaan yani shaygii oo lasii caddeeyo xagga luqada adhir kalaamaka haddaan ku ihahdo hadalkaaga cadde bimacnaa wadix wabayin bay ka dhigan tahay marka luqa waxaa loo yaqaanaa alidhaar albayaanu walwuduux in shaygii la caddeeyo oo la bayaamiyo ayay noqonaysaa wasilaaxana ikhraaju kuli xarfin min makhrajihi min gayri gunatin xagga heshiiska waxaa loo yaqaanaa ikhraaju huwa idhaarku ikhraaju kuli xarfin xaraf walba waa in laga soo saaro min makhrajihi booskiisa min gayri gunatin iyadoon la guneyneyn yani xarafkaa la soo saarayana waa maxay waa nuuntii iyo tanwiintii wanuun iyaduna waxa weeyaan de makrajkeeda waa la yaqaanaa waxaa la soconaya marka min gayri gunatin taqyiidkan uu saarayo culamada qaarkood waxay kusii ladhaan min gayri gunatin kaamila guno aan dhamaystirnayn lanna maxaa yeelay annuun walmiim waxayba ka samaysan yihiin waaba guno yani haddaa nuun aad ku dhawaaqdid maraatibta gunadu ha kala sarsarayso laakin annuun lahaa guna lakin hadihi اlguna asalkeedun baa muuqanaya aslu اlguna laakin tii waxa weeyaan zaa'idka ahayd ee dhamayska tirneed baa la diidaya culamada qaarkood waxay kusii daraan walaa qalqalatin iyadoon la qalqalaynin yani dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu muujiyo laakiin uu qalqalo uu ku daro anacamta uu ihahda anacamta calayhim anacamta والمطلوب أنعمت عليهم فقد تسكن لكن ما في قلقلة فإذا وقعت النون هذا إظهار كيف الشيخ كشكين يا وحكور فإذا وقعت النون مركي دعض نونتي الساكنة إيربنيد أو التنوين أما التنوينتي تنوينتي وأنا صادق أنا وفتحتين يا كسرتين يا ضمتين قبل حروف الحلق xalqiga xuruuftiisa ka hor markay dhacaan yani xuruuftii idhaarka ka hor bay dhacayaan nuuntii reebanayd iyo tanwiintii xuruuftii asitati ee lixda ahayd xuruufta waxa weeyaan idhaarku ama xuruufta xalqigu waa lix wajaba waxaa waajib noqonaya idhaaruhumaa in la muujiyo labadoodii nuuntii iyo tanwiintiiba wa bayaanuhumaa iyo in la caddeeyo min gayri gunatin iyadoon la gunayneyn amhiladeedana in sha allahu tacala iyo tusaalayaasha waynu qaadan doonaa bimacnaa waxay ku sawirmaysaa tasawurkaas yani marka aad ikhraaju kuli xarfin min makhrajihi min gayri gunatin hadday nuuntii markaa dhacdo ama tanwiintii xuruuftii xalqiga ee lixda ahaa ka hor maxaa waajibaya in nuuntii la muujiyo wakadalika atanwiin labadooduba waxay noqonaysaa in la muujiyo o la caddeeyo sheekhu wuxuu ku yihi su-aal wamaa xuruufu lxalqi haddaba xalqiga xuruuftiisu waa maxay iyagana noo sheeg jawaab xuruufu lxalqi xalqiga xuruuftiisu hiya alhamzatu walhaa walcaynu walxaa
والغين والخاء لحدا حرف وين جمعها وحا كلميي بعضهم علماء قاركود أيا وحي كوروريين في أوائل هذه الكلمات كلمات كان بلو يدودا أيا بي علماء قاركود كوروريين وحروفتي حلقها لحدايد أخي هاك علما حازه غير خاسر marka akhi hamzadan ka qaadanayna haaka hadaynu ka qaadanayna ilman aynkaynu ka qaadanayna haazahuna hana ghayruna ghaynkan ka qaadanayna khasirina harfu al kha ayaynu ka qaadanayna idan macnaheeduna maxay noqon akhi walaalka yow haaka ho oo qaado ilman ilmi cilmigaas oo haaza uu koobay hu cilmigaas ghayru khasirin mid aan khasaarin yani mid guulayso liibaanay علم كوبي أو حصري قاضب كلية إذن إنه وحنو قصي ناون ولحظة حرف كلمة ده نقول الرأي أخي همزة قاضى هاك علما حازه غير خاسر لحظة حرف أيا بكون نقول يا حروفتي الإظهار أمثلة نقاضنا إظهار كنا هذا بقى وحون نقول كرا في كلمة واحدة يعني نون ترى بنات هي حروف لحظة في كلمة واحدة ويقال كرام وكذلك في من كلمتين ويكلا دعي كرام نون تينا كلمة دان سيدعي حروف تينا كلمة دان ضمباء كحكتا أي مصدر نقونا يانا يقوه الرئينا يانا وكذلك بعد التنوين التنوين تيادو لبا كلمة دودينا كلا قشمو يانا في كلمة واحدة يدو كما بالصورة ودبا الأمثلة وتصاليال الحرف يو المثال أي نقاضينا الحرف يو المثال الهمزة همزة محا دليل أما مثال نور ريبان أي همزة أي كذا بدعضي ينأون ينأون يلا هذا لو كلمة كوكا الجيران من إله بعد التنوين عذاب أليم الهاء ينهون في كلمتين أما من كلمتين من هاد بعد تنوين ولكل قوم هاد العين أنعمت من كلمتين من علق بعد التنوين حكيم عليم الحاء في كلمة واحدة وتنحتون من كلمتين من حكيم عليم من حكيم يقول لك المدودة بعد التنوين من حكيم حميد بمعنى حكيم حميد الغين فسينغضون يقول لك المدودة كوكا الجيران نونتي يغين كينا من غل بعد التنوين لعفو غفور الخاء والمنخنقة هذانا من خير إذا كتب دعية عليم خبير هكذا لحدي حرف يتصاله جيبا حقا سكوكو دنياي الإدغام وحكم كي لبعض اسكالهيد النون الساكنة والتنوين سؤال ما تعريف الإدغام إدغام كتعريف كيسو ومحي محال لغو قيحا إدغام الإدغام إدغام كبو كورشاخ لغة من لغة حق اللغة الإدخال وقلين شيء أو شيء لقلية الإرادة يعني هدان قلنك أدفركي سجلس محل إرادة الإدغام في اللغة العربية هدان قعنت هذا أتجلس جابك يقال الإدغام إدغام بالأورانية إذن الإدغام إدخال شيء في شيء أما في اللغة الإدخال قلن بالإرادة شيء أو شيء كلا وحويا لا حرير الصمول لقليو واصطلاحا حاجة هشيسك علوماتنا محوية قانان الإدغام اجتماع هو اجتماع حرفين لبا حرف كلن كودوين وإن كلمان أولهما ككوباد ساكن وإنو يهي والثاني كاللبادنا متحرك وإنو شقلن يهي يعني مد حركة يسونو وإنو نقضو إدغام كنوع عاصنا وكي صغير كها إدغام كاللبا وكاللبحة الإدغام الكبير والإدغام الصغير إذن إدغام كان تعريف أن محين نقول يا وإدغام كصغير كا
bixayثu qaab yasiiraan ay noqonayaan labadii xaraf kii hore reebnaa iyo kii dambe mutaxarika shaqlanaa xarfan ayay noqonayaan xarafkaasoo waaxidan oo keli ah oo mushadadan weliba shadan min jinsi الthaani ka dambana markaa jinsigiisa yeelanaya oo bimacnaa ka dambe ayaa waxa weeyaan uu noqonayaa kii horaa lagu idqaamaya kii dambe marka min jinsi الthaani ba isla soo boodayaan xarafka labaad waxa weeyaan qaabku yahay haddii xarafka hore uu nuun uu yahay xagga dambe uu ka dambeeya waaw waxaan ugu dhawaaqaynaa nuunta gunadeedu baa haraysa laakiin waaw bayn ku dhawaaqan minwaal مثلا su'aal ma aqsaamu اlidgaami idgaamka aqsaamtiisa iyo muxuu kala baxaa aqsaam buu leeyahay jiim yanqasimu اlidgaamu idgaamku wuxuu kala baxaa ilaa qismayni laba qaybood waaye labadaa qaybood waaye hamzada ama alifta idgaam biguna idgaam oo biguna ay maca guna idgaam guna wata وxuruufuhu kaa xuruuftiisu 4 waa 4 majmuucaة oo lagu kulmiye oo lagu ururiyey fii lafdiga yuumin maxaa lagu ururiyey waa lafdu yuumin ama yanmuu labadaba waa lagu sheegaa marka yuumin biduuni hamza yumin maan waa yuumin ya wاlwaaw wاlmiim wاnnuun alamhila tusaalaha alyaa idgaamkana waxaynu la soconaynaa laa yakunu ila min kelimatayn idgaamku fii kelimati waaxida ma dhaco waa inay nuuntiina ay kelmad gasho xarafkii yani lagu idgaamayay ee la dhex gelinayay nuunta ama tanwiintana waa inay kelmad kale ay gasho tusaale ahaan alyaa man yacmal bacda tanwiin fi'atun yansuruunah alwaaw من ولي بعد التنوين سراجا وهاجا الميم من ماء بعد التنوين صراط مستقيم النون إن نقول بعد التنوين ملكا نقاتل وهكذا ba waa qodobkii labaad yani waa qismigii labaad idgaam bilaa guna idgaamun oo bilaa gunatin oon guno wadan wa xarfaahu labadiisa xarafi اثnaani waa laba humaa labadaa xarafi allaamu wاraa waa laam iyo raa alamhila tusaalayaashii bayn qaadanaynaa allaam almithaal laam oo nuun saakin oo bacdahaa laam ay laam ka daba dhacday tusaale ahaan allow bacda tanwiin andاada liyudiluu الraa min rabbik bacda tanwiin bashara rasuula haakada idgaamkiina labadaa qaybood buu inooga kala baxay qayb wadata guno imse xaraf bay haayeen waa 4 afarta maxaa lagu jamciyaa yuumin ama yanmuu waayo kuwa aan gunada lahaynna waa imse xaraf waa 2 laam raa weeyaan xukumka saddexaad ay iska leedahay annuun aلsaakina wالtanwiin aliqlaab su'aal maa tacriifu اliqlaabi iqlaabka tacriifkiisa iyo waxaa lagu qeexa waa maxay jiim aliqlaabu iqlaabku lugatan xagga luqada taxwiilu shayi waa shayga in laga gediyo can wajhihi wejigiisa qaabku u yaalay yani maxaa la yidhahda qalb yani shaygii haddaan gediyo siduu u yaalay aan ka rogo maxaa la odhanaya fi luga waxaan qalbi baa la yidhahda hadalka siduu ahaa haddaan ka leexiyana maxaan ku sameeyey qalbi waa siduu ilaahay munaafiqiinta uu ku tilmaamay dhaqankoogu uu yahay waqallabuu laka umuura marka way kuu gagadinaya yani shaygii waxaan sidii aan xaqiiqada ahayn ayaabuu waxa weya uu ka dhigaya hadalkii buu bedelaya idan alqalbu lugatan taxwiilu shayi can wajhihi waa shaygii oo laga bedelo wejigiisii iyo qaabkiisii uu ahaa wasilaaxanna qalbu nuuni nuunta waa in loo gediyo nuuntii asaakinati ee reebnayd
أو التنوين أما لبا شقلكي فتحتين كسرتين يا ضمتين ميما لو قديو عند الباء بعض مركي لكولنتو يعني نونتي مركي باء كذا بدعضو مع الغنة يدو الغنين أما تنوينتي هذا حرف الباء وكذا بدعو مركا نونتي حركتي ولا قاضية محل دول دقا في المصحف علماء الضبط maxay sameeyeen miim yaro sagiir ayaa la dul dhigaya tanwiintiina haday mansuub ay tahay iyadana maxaa la raacinaya xarakadii kale mudaafkayd miim baan u raacinayna haday maksuur ay tahayna hakada oo tanwiintii waxa ka dambeeya uu maksuur ama iyadii hoos dhigan tahay waxaanu raacinaynaa waa miim miimtaas bimaana waxay ka dhigan tahay tanwiintan ama nuuntad waxaad u bedeshaa miim marka iyadoo lagu neynayo فإذا جاء هذا haduu yimaado بعد النون الساكنة نونتي reebneed أو التنوين أما تنوينتي kadib حرف الباء marka xarafkaas waa فاعل جاء فإذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة والتنوين جملة معترضة oo tafsiirinaysa marka waxa ka dambeeya soo socda فإذا جاء markuu yimaado marka حرف الباء بعد حرفka ba'da loo yaqaano markuu yimaado bacda nuuni nuuntii kadib nuuntii asaakinati reebnayd aw الtanwiin fatuqlabu waxaa loo bedeli oo loo gedini annuunu nuuntii asaakinatu ee reebnayd aw الtanwiin ama tanwiintii miiman baa loo bedelaya oo khaalisatan saafi oo barxla oo mukhfaatan oo la qarinayo cinda albaa'i ba'da agteedo بغنة مع غنة يدو غنة مركا وضعتها مركا كيفية ماذا الإقلاب مركا لقودنا من حيث الأداء علماء اسكو خلافين قاركود وحيليا وحكو الصوروبيا يعني إقلاب كاس وإن فرجة يرى للسماء فرجة بين الشفتين فرجة بين الشفتين علماء قاركود وحيليا لا يعني ونون وكتب حرف ماذا الباء والباء تخرج من بين الشفتين مركا والله اسكو إطباقية إطباق أيا للسمين يا طبيعية مركا لبضبا مركا وأوجران لكن محققين علماء انت وبرنا يدنبه وحي كتغيان إن لوغو رواقو من حيث الأداء الإطباق فرجدنا علماء كتكتوي جرتا مركا والله سبحانه لا تصالها مثل لا ينبذن عليم بذات الصدور فيصير النطق مركاها هكذا لا ينبذن عليم بذات الصدور صراص أياب النقرة يا نطقه الإخفاء وحكم كي أفراد إسكالا يرهي النون الساكنة والتنوين سؤال شيخ حكوري ما تعريف الإخفاء إخفاء تعريف كي سوا محي لغة حق اللغة والصلاحا حق يشيسك علماء أي يقانان علماء أهل الأداء جواب الإخفاء إخفاء لغة من لغة حق اللغة الستر بالغ وشيء إلا أستر والله قريو أو حق اللغة وحد أوران كرتا اختفيت عن أعين الناس وحن سكقريه ضدك أرجوجي ما سكقريه مركا الإخفاء في اللغة محل لها الستر وشيء إلا قريب والصلاح النوح على هذا نطق الحرف هو نطق الحرف حرف كوين لو قد واقع بصفة قاب بين الإظهار إظهار كي والإدغام ودحيسا لما إظهارين يو ولا إلى الإدغام أو شدة لما سعته عار هو عار مركا إخفاء صوحك مرنيهي عن التشديد شد مع بقاء الغنة غنة يضع باقي يكون قنص يضع لقبه في الحرف الأول وهو النون أو التنوين يعني وحين السمين إن حرف كيبان وقود واقع إن قاب ودحية إظهار إيه إدغام أولي بكان مرن شد يضع غنة أي كوهر يسو حرف ككوبات حرف ككوبات نمحو نقول ونون تيري بنيد أما تنوينتي فإذا جاء مركا هذا بعدو يمادو بعد النون نون تكدب نون تي الساكنة بنيد أو التنوين أما تنوينتي حرف ندو يمادو ومن حروف الهجائية حروف هجائية كم بدأ الباقية صوهر حروف هجائية إظهار كي مسحرف ينغى سوقاتي لحب سوقاتي صومان واي الإدغام كم أخذ يسوون اللي حرف بسوقاتي إقلاب كي نمحون سوقاتي هل حرف انت مركز صوهر دي محين قونيسا سيدي الله تنكا مركز نكجرنو شنية طبعا سوهريسا
intaa marka soo hadhay waxaa waajib ah ikhfaau nuuni nuunta in la qariyo asaakinati ee reebanayd aw tanwiini ama tanwiintii maca baqaa'i lgunnati gunnadii iyadoo ay baaqi ku noqonayso ay ku harayso fiihimaa nuuntii reebanayd iyo tanwiintii. sheekhu wuxuu ku yihi su-aal buu xaggaa ka dhaliyey maa xuruufu likhfaa'i haddaba ikhfaaga xuruuftiisu waa maxay haddaynu luqatan isilaaxan aynu ogaanay ikhfaagu wuxuu yahay jiim xuruufu likhfaa'i ikhfaaga xuruuftiisu hiya awaa'ilu kalimaati hada albeyt beytkan kan kelmadihiisa bilowyada xuruufta ku bilaabmaysa weeyaan xuruuftii markaa alikhfaa xuruufu likhfaa'i ikhfaaga xuruuftiisu hiya awaa'ilu kalimaati hada albeyti beytkan kana kalimaadkiisa kalimaadka awaaisha yani xarafka kolba ugu horeeya ayaanu ka qaadanaynaa. beytku waa kan sheekh sulaymaan aljamzuuri ba fi atuxfa alaطfaal markaa ku ihi صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دن طيبا زد في تقى ضع ظالما صاد كانوا كقاضنا حرف كوجوه الرئي صف تلمام أو صفاء ذا ثناء من أمان صاحبة كم جاد شخصي امسو يعني وديق صومي بمعنى نديق سو أو نقضي أو قد سما أو مركز سرمري دم دائم طيبا حلاشة يعني qof wanaagsan noqo oo xalaasha laazimo daa'ima zid ku ziyaaso fi tuqan cabsida alle watazawadu fa inna khayra zaadi taqwa dac daji oo liid zaaliman qofka zaalimkaana yani dulmigii isagana ka qabo isagana liid marka macaanida uma soconee waa kalimaadka beytka ku jira sif ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وشنية طبعا حرف شنية طبعا كحرف markay nuuntii reebneed ama tanwiintii ay ka daba dhacaan ayaa la ikhfaynaya nuuntii ayaa xarafka ka dambeeya marka lagu ikhfaynaya marka waxaynu la soconaynaa ikhfaaga noocaasa saan hore u baraarujinay alghunnatu markaynu gunnoynayno alghunnatu tatbacu maa bacdaha tafkhiiman وترقيقا كما الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا قلنا وحي الراعي حرف كدنبي هذا حرف كدنبي يوم نقضه حرف من حروف الاستعلاء صدى الصاد وكله حرف الضاد وكله حرف القاف وكله هذون نقضه قلنا دي محانو يالنا وينيننا عيلنا باقل سمركا ويناني هذا حروف تي عادية حروف الاستفال وكمير نقضنا وينو يريننا أرنك نوعانا waxaa laga qaadanaya oo lagu garanaya min afwaahi almashaayikh almahara yani mashaayikhda garanaysa ee fannigan cilmigiiyo aqoonta dheeraadka u leh ayaaba marka laga qaadanaya laa maahin fikir iyo waxa weeyaan wuxuu qofku ku keenayo maskax iyo dhegeysi keliyaato ma keenayo yani musaacadu noqonaya dhegeysigu laakiin isaga keliyaata laguma kaaftoomayo waaye والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف سدولها إمامك إبراهيم السمنودي عليه رحمة الله وفخم الغنة إن تلاها حروف للسعلى لا سواها سدول سقنا عثمان سليمان مراد أغا صاحب السلسبيل الشافي هذا أمثلة من آخرين الحرف الصاد بأوهر يصف صومان من صدقه طاعا صفصفا في كلمة واحدة ويدعي كران الذال من ذا الذي هي بعد التنوين عزيز ذو انتقام الثاء منثورا وفي رسالة موينين هذا منثورا هذا صح أم خطأ خطأ لأن محيل النون وحا كتب حرف من حروف الاستفال منثورا أزواجا ثلاثة من كان وكافكي كتاب كريم واي الجيم من جاء بعد التنوين فصبر جميل الشين
من شر ما خلق. بعد التنوين جبارا شقيا. القاف من قبل. بعد التنوين عذاب قريب. السين ولئن سألتهم. بعد التنوين قولا سديدا. الدال من ديارهم. بعد التنوين كأسا دهاقا. الطاء انطلقوا. بعد التنوين حلالا طيبا. الزاي بما أنزل. بعد التنوين نفسا زكية. الفاء من فضة. بعد التنوين عاقرا فهب لي. التاء أنتم. بعد التنوين جنات تجري من تحتها. الضاد ومن ضل. بعد التنوين قوما ضالين. الضاء من ظهير. بعد التنوين ظلا ظليلا. marka xuruuftii waxa weeyaan alikhfaa iyo amhiladoodii marka waa kuwa yani yakuun alikhfaa fi kalima waaxida wa fi kalimatayn wa bacda الtanwiin marka qeyb kamida ayaanu xaggaa ku qaadanay ikhfaaga iyo xuruuftiisii. marka darsigeenu qaadanana khulaasatan wuxuu noqonayaa waa baabu axkaami annuuni asaakinati watanwiin. afar xukun bay lahayd. afartaa xukum wuxuu ahaa alidhaar والإدغام والإقلاب والإخفاء. إظهارku wuxuu noo soo yeeshay xuruuf lixa oo lagu ururinayay waxa weeyaan kalimaadka aynu soo dhiganay ahaa akhii haaka cilman xaazahu gayru khaasirin. xukumka labaad ay nuunta iyo tanwiintu iska lahayd wuxuu ahaa alidgaam. idgaamkana waxaa lagu ururiyaa yarmuluuna waa yaa ra miim laam waaw iyo nuun. xukumka labaad xukumka saddexaad ay nuunta reeban iyo tanwiintu iska leedahay muxuu ahaa aliqlaab. hal xaraf keliyaata weeyaan. xukumka saddexaad afraad baan u jeedaa oo iska leedahay annuun asaakina aw الtanwiin waa alikhfaa. xuruuftiisuna inuusay ahayd waa 15 oo lagu soo ururiyey صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نكتفي اليوم على هذا القدر وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.